jiray buuxsha aga buux sameeyay garmadooba aan baqin dhalintooy السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب من رب ويدين دون ذاك الجوكتان فيديو ما ونكسن مالين ما ونكسن حلو اللي بيجي وقت ولا بيجي انت يكون صار هذا برامج كني كريبتا صومالي ميديا قد بكل دون جن برامج كنا نع واحد نع الدنيا ورارك العيا كريبتا كارسيجا عنو كوسو قادن دونا سلام كان قيبتي سوقية على دي سنة عنو في دونا بالترايدرز كوام السرف ليدو محي استسلا دحمريسا dunidu markay noqotana xaalku waa sidee iyada naftigeedu qayb ka mid ah barnaamijka ayuu noqon doonaa like subscribe share adiga beri kama gadna wax badan ayna naga saacidi karaysa waxaan dareemi karaynaa in marka kaabkeena ama lacagta guud ee kiribta ku jirta rajada 1 trilyan baa haday ka sarreyso jawigu wacan yahay 1.1 trilyan oo dollarka Mareykanka ayaanu maraynaa sarifleydii 24 saac ee la soo dhaafay trilyan soo gashana janis ay haystaano كوينان فربضان ayaa madaxa soo qaado fursada dhinaca trade-ka jaabka jajabku soo kordhinay 1.1% ayuuna lacagta suuqa ku jirta oo idil ay soo kacday koonarka 24 saac trade-ka muujinaya waxa kamid ah oo hormuudna ka ahay coin-kii dhinaca dunida gaming co hadad moogid engine coin waa koonanka dhinaca dunida game-ka wuxuu siibto taagan aniga adduunyadaas ano xataa Ethereum ku dhex dhisan blockchain kalaan u dhiso u gaaraho dunidaas ka shaqeynaya 12 waxa uu soo kacay 9% toddobaadkan Vrag share marka laga reebo isaga ayaa 40% engine coin erka isku soo shareeray toddobaad qofkii haysta wuxuu taagayaa engine iyo hadara oo kaalin wanaagsan ay qaadanayaan Kasper ayaa isaga naftigiisa arki karina 22% soo qaliyoobay koonka sanadkan ayuu kamid ahaa nasiib waxaan asxaabteena la soo qaatay xagaa jaabka waxba nooga soo kordha meeshaas Neo Protocol isaga naftigiisa 5% afrilaataki saaca la soo dhaafay dhinaca trade-ka bala hada graph waa iska wanaagsanayeen waxa jaabka dhan ayuu wada fiicnad xaaladdu sidaan dareemayno halse haddaanu arrimahaas ka soo tagno suuqa dib u milicsana bal anoogu bilaabo nimankii XRP ahay gaar ahaan kambanigii Rebel Labs ninkii Brad Garlinghouse ahay ayaa waxa uu taagan yahay asxaabay FTX dadka oo dhan maaha waxay dhacday anaga xitaa macnaha waxaan ka wadaa masaakiintii exchange lacagta keensatay iyo xoogaa bangilee oo beertu u dirtay maaha war anagii xataa 10 milyan oo dollarka Mareykanka oo XRP u dhigma ay asxaabta naga dardareen see ku dhacday waayo marka odayga marka magaalada Davos soo ka hadlaya waxa la yiri oo wargaarino bal waxaad ka warartaa bal dhikii saamahay adiga waaba iska agdha dhaweedeen liquidity XRP iyo xaalkiisii bal meesha ka war xaaladaheeda dhig report-ka waxa waaye wali maad ku soo dirinay bal maxaasiya markaas wuxuu taagay dhibayaho FTX 100 milyan oo dollarka Mareykanka oo XRP ah ay la guurtay oo bankruptcy-ga ay xareysatane waxa ilaahay ka tuugana in xataa xoogaa ahelno ama isaga dhan ahelno laakiin wuxuu taagay mid ogaada asxaabi camalno bankruptcy-geeda FTX ay xareysatay rajadiisu waa iska qalam laakiin 1% ay u dhigantaa kambaniga Rebel dhaawaca soo gaaray oo macnaha anaga hadda 10 milyan u dhutimayno laakiin maxkamaddu waxay ka tuugeena waxun xataa inay soo celiso ama asidan ay noo soo celiso 10 milyan ama 5 milyan ha noo soo celiso ama 10 ha noo soo celiso qeyr ay haalaheed laakiin 1% badda volume-ka kambaniga ama liquidity kambaniga Rebel ahaan markay noqoto balka maqan laakiin on arrin iyada raftigeedu jirto u rabaahan inaad la socoto XRP Arms marka waxa waaye ninkii FTX samahay 10 milyan oo idin tago koonkii dhiahayo XRP walba soo xaraashilad laakiin ayaga horay u sii qaatay adoo iska baxar waxa waaye faa'iido leh waa kooyinka la ka go'aata sablaygiisa marka waa arki doonaa kullee xaalkaas meesha ku soo dhamaado saaxiibkeen Authorize asaasihii kambanigan Bitmax xaruntii qamaarka ugu horeysay dunida crypto yarkii madaxweynaha Ameerikaanka ahay ka bacdi waxa la soo qabtay iskiika laakiin balaykiisii qamaarka suuqyada derivative-ka iyo leverage-ka ninkii ugu horeeyay soo ahay oo cagaha u dhiga yar Ameerikaano madow ah waaye marka analyze wax buu bixiyaa hadda maadaama exchange-giisina beerta loo diray Ameerikaankii xabsi iyo balaayi kala dib u wareegeen ka bacdi uu yiri code-kan waxa alif waa laga bilaqaystay exchange-yada kala hadda ku faa'iido Binance iyo maxaa la yiraahdaa Derbit iyo
waxaana direct leverage waxaan oo dhan ninkaana macalinkeeda ahay oo protocolkaas dhisay markii dambe waa iskala tegay marka wuxuu taagay bal waxaa la yidhi war ka warraniyo qaabtii hore waad ka mid tahay so bal xaalkan analyze markaa fiirisa trader waaweynna waad ka mid tahay taagay neo derbiga 16 kun waxaa naga soo kaxeeyey xogaa raja iska ahayd arrintii markay noqoto CPI reportka oo 6.5% iska ahay dadka qaar ay taagnaayeen December haddii xaalku saas yahay waxaa macquula federaalku pivot waxa la yiraahdo inay bilaabaan ama in ay wax ka bedelaan interest rate-kan sarowqaadkiisa xogaa lacag ay soo dadaabici karaan waxba raja ayaa jirta laakiin wuxuu taagay waxaan baleemo aan u kala diyaarino aanu fiirino Federal Reserve currency-gu ma laga yaabaa inay sameeyaan inay lacag daabacaan ama pivot iyo waxyaabo kale ay sameeyaan iyaga naftigoodu Federal Reserve-ku hadda cabir kale isaga naftigiisa la imaanayo taagan CPI-da si aan wax uga bedelno shaqo la'aantii waxaas la soo ilaa awaatol ay socoto haddana waxaanu raadinaynaa bal iyada naftigeedu inflation-ka levelka 2% gaarsiintiisu dawaq xoogaa miran way geli karaysaa laakiin waxaan raadinaynaa bal dadka shaqeeya in waxoogaa mushaharka waxa soo gala kor u kacdo inta kor u kicistaas ay yara socon karayso oo ay dhahaan consumption exposure-ka oo personal oo isticmaalkiisa lacagaha mushaharkiisa xitaa percentage yar in loogu soo daro dhinaca mushaharka markay noqoto muddo markay waxaa socdaan bangiyadu interest rate-ka ay yara wadaan tan intana ka socoto oo tan ay yara xoogeysata marka hadhow haddana waa la isla keeni karaa interest rate-kii wadid inaan ku hayno kanna uu soo gaari karaayo oo dadku aysan jidkan ay soo istaagaan aysan qeyli karin oo dhihi karin war maxaa waayaal dhaanin kun iyo xoogaan ku shaqeeya mushaharkii dhanba dukaankaa qaatay la yidhahdo xoogaa jaa lagugu dara 200-300 dheeriya mushaharku ku dhex jirto ilaa intay sicir barar iyo balaaykaas waxyaaba markay soo xisaabinayaan cabiro kale iyo waxbay ka keenayaan waxa macquul wuxuu taagay odayaashu inay sameeyaan inaysan sameyn iyada naftigeedu waa iska dhici kartaa laakiin midaa dhici karto haddii Federal Reserve currency-ga la yiraahdo US credit market-ka suuqyada deynta dunida ee dhinaca markay noqoto Mareykanka beerta galayo markaas laga yaabaa in ay bilaabaan inay lacag daabacaan inta ka sokaysa laakiin wuxuu taagay xaaladdu nimayho basho iska rajaya traders oo fursadooda fiirsanayo wilina marka waa nagu adagtaa markay noqoto xaaladahaasi in ay si fiican u istaagaan iyo isagoo taagan in kabriye fara badan xitaa ay kacaan waan dareemi karaynaa laakiin gabagabadu waxay u egtaa oo qurabal odayaasha suuqaas ma ilaali karayaan suuqa deynta Mareykanka ama nidaamka bangiyeedka iyo waxyaabaha sidoo u shaqeeyo aan arki karin hadda bangiyadu fara badan inay cabaadayaan qaarkood shaqaalihii iyo xafiisyadii ay soo xireen odagii saaxiibkeena JP Morgan ahaayo budno isaga keenaysa jireen isagana bariyahan waxaaba laga kari layaa warniyo baalka Bitcoin la yiraahdo ka fuq ma ka fuqayo odag wuxuu taagay carabka ku bato bal nimayahow idinka dhalinyaro iyo asxaabtiinano kulan Davos noo saydi kaga dhaadhacday 21 milyan ninaan la aqoon waxaan 21 milyan ninaan la gaarin ee aad leedii 21 milyan oo ku go'aya asxaabta reer kiribto taqabudkooda soo qateen waryaa shan leen oo quraaba xaqiijinaysa soo moogid kaala adiga akhri marka odayga waxaa maray doonaa subaxa dambe inuu dhihi doono warbaalkiisa u sheegay waa gateenay oo yaa liigu wareerin marka abaabulkeedii howlaheeda ayuu haddana dhinacaasi uga sii jiraa iyada naftigeedu nimankii China ahay ayagana score dhigeen oo lacagtii CDBC Central Bank Digital Currency say u soo wadeen ayada kaligeed ba wadinay markaa smart contract dabada u geliyeen China smart contract isticmaalaya bakshish oo ku siira hadaa lacagta maxaa la yiraahdaa Central Bank Digital Currency ama CDBC do yuan ta aad isticmaasho oo macnaha wallet-kaada dhinaca yuan bankiga kaaga furanay wallet-ka ah application-ada hadda dhinaca e-commerce-yadii waxaas dadku ay u isticmaalaan mutan waxa la dhahaa mutan oo wadanka China aad looga isticmaalo sida waxa ayaan u maleynaa wuxuu dhigmaa eBay-ga dunida galbeedka laga isticmaalo abahana marka waxa far badan dukaankaas dhinaca internetka e-commerce-ga looga listi garaya marka dukaanka ayaa waxa uu qabaa marka listigiisa in shay hadaa ka gadanaysid uu ku tuso yuan CDBC ma ku bixine bankiga caadiga ma ku bixine WeChat-ki wixii kale ma ku bixine hadaa ku bixinayso lacala in CDBC Central Bank Digital Currency wallet-kaadu ku jirtay aad isticmaalaysid lacagta yuan-ta ahayd waxaad awoodi kartaa smart contract inay faylkaas akhriso marka lacagta soo diraysid oo shankood oo waxyaabo ku dhex jiro bankigu ugu dhex sameeyay smart contract-ga iyo wallet-ku isku fahmayaan taas ay ku samayn karayso percentage gaalno iska taqaanaa wareerka uu qabo haddii la yiraahdo shay gaar ah gadane waxaa ku gadanay 99 laakiin 98 aa lagu xisaabaha aan dhaho 97 lagu xisaabaa laba kuu soo noqonaysa hadhow oo wallet-kaada ku soo noqon doonto maxaa jira la 99 maxaa bixinaa ma 97 hadda bixiyo marka
yuanti nimankii smart contract shares ku soo heleen farsamadaas ah way taagay shayga oo abka ka dhex gadato e-commerce-ga ah xaga baqshiisha ku soo noqonaya 2% 3% camal ku soo noqon karayso xisaab sidee waxay xisaabinaysaa 8,888 RMB-ga ayuu ku xisaabinaya adiga $1 iyo jajab xogaa wax u dhigmo way ku soo noqon karee inkastoo hadda dad fara badan ay taagan yihiin percentage-kan bangiga dhexe China uu soo tabinaya dhinaca markay noqoto isticmaalka lacagta smart contract ahaanta loo isticmaalo ama xataa central bank digital currency la isku dhaho dhanbo in 3 adho ever dhibic sod iraal noqdo ever dhibic 13% guud ahaan wadanka China lacagta bini aadamka yuantay wareejiyaan ama banki ahaan ama cash ahaan ama si walba ay noqoto ever dhibic 13% ay maray CDBC dooda 2020 nimankan bilaabeen podcast inkastoo hadda Davos groupkii Joshua musiibadoodii ay dhahooyaan baasho way fiicantaasna waxbay daldaloyaan laakiin kuwaas halka doonaa China inkastoo doontaas hadda muddo xogaa inuu ka soo degay sanadkan oo sanadadii hore uu aad u saray nimankii hadda kullaybo smart contract ay ku soo kordhisteen marka China smart contract isticmaalayo oo 100 jeer lagu tijaarma annaga halka smart contract iska sameysano maxaa ku faleedaado deena la afira iyo jabaljan aan dhamaahay wiliis wariyaha ka dhaga qabto dadka bagiga dhaxa fadhiyo waxaad nagala socotaan Crypto Somali Media like subscribe share adiga bani kam darbiga 10 kuna noo muuqda saxaabi baalkan mujidaan maalkan 10 kun naga gaarsiiyay hadii kale bud aan soo qaadanayna miyama ama santiin asxaabtii eriyadan ilaa 17 insha Allah maalna gaari doona 17 kuna dhahaya abo arki doona asxaabay kulli insha Allah mardow oo dabaaldegana 10kaas nasiib iyo noqon doono qofka ugu dambeeyo oo dhigi doono waxa waaye ana qofka ugu dambeeyo 10,000 geeyan lambarka xiran noqday aan dareemeynaa bal percentage ka inuu iska yara fiican yahay bitcoin 20,000 soo galay fursadaha dhinaca trade-ka haddaan zakano fiirino coinalka la isdhihi karo saacad 2 saacadood oo foodan ugu soo saxta muuqaalkan uu live yahay hadduu 2 saac dhaafo cilada ka imaanayso coinalkaas dhinaca trade-kooda markay noqoto isaga naftigiisu bitcoin-kan rajo uu ka qabo in 20,100 iyo waxoogaa 20,190 iyo $2 insha Allah 2 saac gudahood insha Allah waa ka helay DF qadaro inaa hore uga sii qaadato ninkii XRP ahaa isaga naftigiisu waa lasoo dhaawacay laakiin waxaanu ka heli karaynaa 39 iyo $1 haddana maraya 39 iyo ayaa ku soo kordhi karo waxa la isdhihi karaa ayaa wax soo kordhi karaayo dhinacaan markay noqoto maatig isaga naftigiisu waxaa laga heli karayaa 94 senti 96 senti hadda ku hesho xataa iska 94 mara 2 senti hore uga sii qaadato tiraada war iga tag warya Ethereum hadda tiraada ka waran lacala waxaa 550 hadda ku soo qaatay xilligan live-ka aanu nahay ee tiraado war iga bax 570 20 30 $30 aan ka duubtay meeshu waa hawd kuna ma wanaagsan in lagu fogaado qodobadaas ayaan jeclahay barnaamijka dunida markay noqoto barnaamijkeenan arrimaha kriptada ku falaqayno inaan idinku la wadaago hawdka yaan lagu fogan sidaas nabadino dhur kurateen iyo amanaala boqol sano midkii jiray wuxuu aga buux sameeyay garmadooba aan baqin dhalintooy isbiirso ballanteenu